anigoo badqaba dumar baraashadii igu tahay bilowso soo subax barqa bidhan aragtiga kuma bogin dhindho anigoo badqaba dumar baraashadii igu tahay bilowso soo subax barqa bidhan aragtiga kuma bogin dhindho badankiyo qalbiga beerka kuma baahino soma noqon bistii badankiyo qalbiga beerka kuma baahino soma noqon bistii markaan ku bandhigay inaan ku bukana watad buurtu sare markaan ku bandhigay inaan ku bukana watad buurtu sare bartada xaawadna birbadigu umudo baaba oo dartaa bukaan socod iyo 60 kilomitir ayay magaalada Warshamood oo magaalo taariikhiya oo magaalo qadiimi oo magaalo cid walba garanaysa reer Warshax kuma tigin ugu soo reeba haddaan reer Warshax tahay baaba oo dartaa bukaan socod noqday waan bogsaday hadduu badaa kuma jiri صباح برشاوان وان بقصدي هاتو صاحب يا صار كيسانبا ولي بعادكي بaa ku sugannahay gaarigayga waa kan iyo gawaridii kala wadanay bacaadku aad iyo aad buu tiro badan yahay ma sha Allah laakiin sangeer baad kaga baxay sangeer waxaan ahayn haddaad gaariga gelin halkaas aad dhex saxanaysa insha Allah waa soo soconaynaa gawaridii waa kuwan insha Allah saaxiibayaal laga warhaya الله عبد الرحمن شيخو بحال كان نور شرح بحال كان هذا السلقة لها تذكر وحي يقانان تقوى ويقانان سلقا والله ملاي أدو في عواي سلقا كشار واي هذا أيوه الرئيس ملاي كان فايد في علولي هاي مرقيس برسوحي مدحي واباني الرهيبة بريو برقادي وحي نسيها مدحي مرقيسة بدل نسيها هذا عاول هم لما قالوا نقول سمي قيب بحق دقي سليلة قدوبي قيبنا سليلة قدوبي قيب تاني سليل الآن ودراي قيبتنا ودراي واحد سليلة قدوبي ما جرت قفدي أو كوليسترول قبو أمين واحد كسر قبو كلا يسمعون كنا داشكينا واكن بس كي شنو جينا واكرا هيرب كاسكي ريد صوماليه والله يجي مرق أهانا واكن ملاي قاس نحاول كي يقولون هاي وكي روتي اللي يقولوا عليه والله يا مرق عليه ما شاء الله ما شاء الله marka soo dhawaada warshad beach kasta soo dhawaada xaro inuu ciimamadaan bishii hal mar lacagaha muqdisho ay gelisiin ama hargeysa la geliyo ama Soomaaliya Ismaaciil la geliyo hal maalin warshad imaada hotel gardiin degana هاي ريسكي kala gurta marka lagu daray ملايقة وكا عديرو ملايا ان شاء الله وبلا الله فكرني سومها ويرى الله فير يرو لي هاي لكن وحير حقا وير صار
ما شاء الله والله يا حق النواكن حق النواكن حقنا بس كيف كيف ميجي نواك صويب 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 وكا شوفك وافصار بسم الله بسم الله السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada maanta waa maalin cusub muuqaal cusub iyo magaalo cusub waa kan xalkii ma rabtaa inaad ay kululkaaga kordhiso xalku waa Premier Bank waan bogsaday hadduu badaa kuma jirin saaka waxaan ku suganahay warsheekh xalay halkan aad aragtaan ayaan seexday ma sha Allah waa madow laakiin waa baqtiisan laakiin qalbigaygu halkaas ku yaala hadaan inta ka imaado insha Allah taala saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan taariikhda warsheekh la fagro inaan taariikhda bal meeshan saaxiibaan idin la wadaago aan barnaamij aad iyo aad u qurux badan insha Allah taala idin ka soo duubo ina mariya let's go guys qadiim ahaan magaalada waxay isku da'yihiin sida magaalada Saylac ma sha Allah magaalooyin aad iyo aad u fara badan albaabka yar baa laga baxaa hotelkayga warsheekh restaurant and hotel ما شاء الله أصحاب هذه هذا قيمة بدن بيسود ويسي هذا أنت هاكي ما ضو ما شاء الله ما شاء الله حالي بدو هالكاسي شوكتي لكن هذا ويسود روت بدو وي عارضة بركي هره وآدي آدي يفوت لكن هذا أفهاف كي لا صاق الشيء هوتيل كي ما شاء الله ما شاء الله نروح على إيه مقالة مسجد كذي عنك هواك badaa kuma jirin sabax barashadan waan bogsaday hadduu badaa kuma jirin badaa kuma jirin sabax barashadan sabax barashadan sabax barashadan meesha waxay leedahay meel laga soo galo هيا ma waxa waaye beledkan beled diiniya waaye بلدكنا بلد دينية هيا diinta aa lagu akhristaa ما شاء maana beled ganacsi iyo wax hawl lagu qabsado ma ah وبلد دينية beled diiniya ما شاء الله ما شاء الله xamar waa ka dhismo horreeyaa intaa dhismo horreysa انت لا اسمه رئيسي حمر xamar ما شاء الله wax ma dhowo wuxuu wax dhow ma aha deganaa jir aagu waa dhinteen dadki ما شاء waa الله tageen ayaamay adigu abahaalkan ku aasayim ya carruurtaada xagee wax ka dhigataa wax ka barataa carruurtayda aniga waa wax banaanka aadaya ما شاء الله quraana bara quraan quraanka aa barteen baawurana soo galay oo guryo aad iyo aad qadiimi ah oo guryihii dhagaxa lagu dhisi jiray waxaad dareemaysaa inay meeshan meel qadiima tahay magaalada xamar waa meel ka fac weyn oo aad iyo aad uga fac weyn ما شاء الله sidoo odagii loo sheegay waana magaalo waxaan ku yidhi diimeed oo wax ku yidhi dadka quraanka iyo magaranaysaa madaaris waaweyn ka furnaan jirtay oo quraanka lagu bari jiray markii aanay xamar jirin halkan quraanka ku barin jiray ما شاء الله anigoo badqaba dumar barashadii igu tahay bilow soo subax barqa bidan aragtida kuma bogin lindo anigoo badqaba dhinaca saaxiibayaal dhanna u dhaafi waayo biyaa iga xidhay biyo xidheen baan gala biyo xidheen dib baa u noqonayaa insha Allah waxaan rabaa inaan taariikhda magaalada dadka ma garanaysaa degan aan weydiiyo iyo dadka iga aqoonta badan insha Allah tacaala badankiyo qalbiga beerka kuma baahino soma noqon bistii
iyo qalbiga beerka kuma baahino suma noqon bistay markaan ku bandhigay inaan ku bukana watad buurtu sare naabogu tiri ما شاء الله صار كيسان بوحن سوق عندي مرصدي ورشيخ هل كانوا حيان جدا هل كتريانو وقتي يقوم يستها وفرديه أو كحكم جري ورشيخ سدي ديجان كنا شيء بل وربحين إن شاء الله تعالى كوبرنا قصي صاحب بقى هذا ورشيخ يوم ليش أنا نشوفنا هذا تاريخي جاه سودو وراكي ورشيخ سودو ماشي وحوا استان ورشيخ وماشي حالنا بنهارنا المشي اللي يجري وحوا استان وتهاي راكبته وضد بدأ سمرته ومجال السوبر دقد ورشة صباح جرتي حريمي حلقة سير جري لا سوار إلى سنغافورة ملك السكيسكي ما جرين عالم قويش كل دوان مرة ماشى واحد قال جرت ورش ناجرتي هذول دمتي أستان لها جرت مشان أو نال كحر ناجرسين ورشة قالوا كم حوا يو بس أنا سوق لكن هذا بربرك بعيد دمتي مرة مشان تاريخ وإلى شنا هذا السنة بلوين كورة وحنا ندرس إسكول كانتي أنتي بنودسون لقوا أستان ودقمة اللي هاي ومرسوين كترياني كأود السودان متكست حقوق تاعي علامة نوعا أسيقول ربوا إنه مجالس كعلامة مش وقتك سوق لها مش وحواي ماشي بيجي سوق لها هين تمام لسه مرسل مراكب توكل بركة الدنيا أي صوص علان مرصدي تمام جرتي ورشيخ هاي ما شاء الله يا ماشي اللي سوق لها هاي وماشي ما شاء الله أدوم مجالنا تقولات مجالنا أقول الشين ده قصة ما ما شاء الله بهاي أو قابل واحد يزودنا بيتي أنا أبي أخذ الشين ما شاء الله أنا ماشي أنا أقول برشا أخذ لنا إنت قصة قارني ما شاء الله ما شاء الله وربحين هذه هذا قرح من قصي والك عبد الرحمن الشيخ ليش قرح ضبطن هذا كيسان هذين كسيد كنتي واحد من الآدية التاريخية واحد مرصد ورشيخ ما شاء الله تبارك الله مستووري مجالنا على الجدري waxaan maqlay sidoo kale in Boortaqiiska laftarkiisu uu joogay dekedan oo meeshii uu ka bilaabay markii la siin waayay deked ama markii uu heli waayay bad in uu meelihi dagaalka ka bilaabay ahayd warshiq meel kasta soo gumaysta kastoo yimid meesha lagu la dagaalamay warshiq ahayd dadkeen waxay ahaayeen dad geesiyaal ah oo waxay la dagaalameen dad badan oo ka mid yihiin Talyaaniga si barqash Arabti dad soo gumaysteen Turkiyada maanta xilligaas maanta iyo dhan ilaa iyo Boortaqiiski waxaasna waa la dagaalamay qaartad keena familkeena ilaa hadda waa maqayihiin nool oo dibashinaha loo waday xariina loo qaaday ilaa iyo hadda taariikhda meel ay ka baxeen lama hayo bad in lagu tuuray yey kale dadka reer warshiq inay yihiin dad xadaariin ah dad geesiyaal ah dad jihaadka yaqaan oo saxda ah jihaadka saxda jihaadka lama qayb dad diinta yaqaan oo waxaan ku leeyahay tahay magaalo diimeed ah oo dadka nabad geliyo lagu nabad galo nabad gelina qofka yeelaynin ما شاء الله قف مدل منه ما شاء الله ظلم منه ما قارنه ما شاء الله مركب حواي ومجاله وكل السنة بتقليه هي تاريخ قديم ورشي خط حلا شلاك وسهري على مغربك إلا ما أنت مجال يا معرض وحكوا في ريها ماي تلفق عسكويتا درون عسكري كعسطي قفناها من تدمي ماي تأدي هذا المصر thank you so much بقول لي صاحب عبد الرحمن إن شاء الله وربح هذه هذا ورشيخ anigoo badqaba dumar baraashegi igu tahay bilow soo subax barqa bidan aragtida kuma bogin lindo anigoo badqaba dumar baraashegi igu tahay bilow soo subax barqa bidan aragtida kuma bogin lindo ما شاء الله ما شاء الله صار سببت دحنا كسرنا دينعاس ودينعي مقالله دينعنا ودينعي بدي دينعاد او سocno waxa tagaynaa dad weyntii Indian Ocean دينعنا ودينعي warshiir ودشو xagaas ay laga xigtaa bal insha Allah maanta dhexdeeda ayaan tawr ku sameeynaa wali fariiq boqolda barnaamijka gudaha kaga jirnaa warshiikh baan joognaa waa shidanahay dala socda
ملاي ما وضع ملاي صار كيسان بملاشكنا سواق استاجي ملاي بصوت ضبطي وملاي مقالة اللي جايبيني كل جو قضيني ما هو كل جو 20 يوم ملاي والملاي أنا تسمى ملاي دون تاني نو كلا هاو شيل دوميت بنعي عليه لا إله إلا الله والله دين عسى ياو بكوري يا بدي والله واك ملاي واي مساحة بدو صدح يا بر دولار صدح يا بر دولار محبدي كلية بس الله والله بالله تالله بلاك صدح ناس حبدي كلية صدح دولار يا برا شبان نوح مريا حبدها السمرة كن دور بمريا وروضة كلم عفر اللي هاي بدو واحد كذا نقول كاي هوي كان اللي يرتاح أي صوت ضبطي بهالكاه ما شاء الله الله كبرك يا صاحب markaan ku bandhigay inaan ku bogana wataad buurta sare waxaan soo bilaabay sanadkii 94 oo muddo dheer ku jirtaa xilliga wadanka ku buurtay wada sac u galay hadda ku jira adigu dadkii baahidu qabataba kuma jirto baahi maxay qabaneen ana caawiyo be dadka ana wax siiyo caawiyo dadka oo waxaad soo dabi jirta malaayga marka malaayga soo dabi jiray magaalada tutusay kala baray dadka masaakiin dadka dad badan aan bad baray kulli oo dhan oo afdam hadda jaa malaay wada banaan ma jiraan dad miigeeda kaga yimid oo magaalada u soo naftoon ha ma sha Allah oo waxaa yimiday magaalada Warshiiq inta soo kumanaan qofoodo idinka soo dhamaan xoolo ka soo dhamaadeen Warshiiq soo naftoon waxaan ku weydiiyey 94 ilaa hadda muddo dhow ma ahayd in misa doomooda ka abuurtay $4 ka abuurtay warnina caadi ma $4 ka abuurtay waa ka alaabaha waa duubka alaabaha kaamira geedso alaabaha dolfi waano dadka duurtay ku soo qaaday haye ubara liidaa ubara dolfi waa ingiliiste soma inta yar wax iskaga yihiin halka xabay iskaga iyo hawaaye waa jamalkan iskaga iyo jasiiro abuura ku kortaalo laakiin qabri male warshaqiis calaamadu leeyahay kan kalena calaamad ma laho qabri ku yaal صح kan waxa calaamad ah teenooyin ku yaali afar kan dhagax laga jabshay intaas waa marka jasiiro isku hal maaha iyo warshaqiis macna waxaan ka hadlaa muuqaal xeebahaan iyo dhagax laakiin jasiiro jamal dhamale way balaaran tahay ya dhul simano furan waa jabalkan ku yaala jabalkan ku yaala laakiin laba jabal abta midaro gaaban iyo mid weyn la kaas aan weyn kaas magaalada laga dul dhisi karaa waa weyn qabuura ku taal misaada ku yaalo dadkii hore waay shaqada xeebta waxyaabaha dhan insaan ku saacido si loo socdo arkaysan baa nimankii aan wada soconay waa kuwa halkan aan hadda taaganay waxa weeyaan waa badda dhexdeeda dhagaxan aad aragtaan iga dambeeya wuxuu ku yaalaa badda dhexdeeda bal insha Allah ta'ala buurta yar baan koraynaa magaalada dhammaanteed waad ka arkaysaa video qurux badan ma sha Allah xagana ka duubayna
iyo in yaroo taariikh oo ku duwan meeshan ayaan la wadaagi doonaa la socod wanaagsan waxaan soo gaarnay ugu dambeyn buurtii yareeda badda ku dhex taallay dhinaca waxaa taagan saaxiibkay maxamed afrax oo taariikhda magaaladan aad iyo aad u haya taariikhda magaaladan waxaa kuli xogaal u ah insha allahu tacaala bal taariikh aad u fiican ayuu ka siin doonaa magaaladan maadaama magaaladan waxaan ku yidhi in badan ka soo shaqeeyey in badanna uu halkan ku noolaa laakiin hadda magaalada muqdisho ayuu degan yahay maxamed afrax soo dhowo saaxiib bismillah waxaa dhawahay cabdisamed magaalada warshiiq horta waa magaalooyinka waxay ka mid tahay taariikhiga ah xeebaha Soomaaliya ku yaala xeebtan dheer mataqaanaa dalka Soomaaliya waxay la bah wadaagtaa ama la taariikh wadaagtaa magaaladan warshiiq laga soo bilaabo Zaylac Bullaxaar Berbera warshiiq Muqdisho Gandirsha Bara Marka iyo Baraaw magaalooyinkaas waa magaalooyin isku taariikh ah warshiiq waxay ugu duwan tahay magaalooyinka kaleeto waa magaalo aad uga taariikh fog waxaa la yiraahdaa mararka qaar oo taariikhyahanadu ay yiraahdaan waxay ka taariikh fog tahay warshiiq magaalada Muqdisho oo marka la yiraahdo xilliyadii la aasaasay warshiiq iyo xilliyadii la aasaasay Muqdisho waxa fac weyn warshiiqa fac weyn mararka qaar taariikhi sidii sheegayso wuxuu ku tilmaamay badmareenkii Faransiiska muddo dhowr kun oo sano laga joogo maray halkan badda maray wuxuu ku tilmaamay magaaladan loo aqaajilay xilligii Greega Abuna waxay ahayd magaalo weyn oo mataqaanaa maraakiibtu ay ku soo xirato oo marso weyn leh oo lagu nasto oo suuq weyn oo mataqaanaa wax lagu kala muxuu ahaa Hindiya iyo muxuu ahaa bariga Afrikaba suuq weyn u ah ayay ahayd magaaladu marka magaalo fac weyn la weeyay waa xilligii Greega magaalo camiran ahayd kadibna waxa burburkii ugu horeeyay ee magaalada ku dhacay wuxuu ahaa xilligii Boortaqiisku uu haystay xeebaha East Africa ama bariga Afrika uu haystay magaalooyinkii uu burburiyay oo uu madaafiicda ku garaacay ayay kamid ahayd iyada iyo mataqaanaa Berbera iyo Muqdisho iyo Baraawa iyo warshiiq waxay kamid tahay marka magaalooyinkii oo aad u garaacay Boortaqiisku uu madaafiicda ku burburiyay burburkaas wuxuu keenay magaaladu inay kabso weyso dabadeedna marxaladii ku soo xigtana waxay ahayd marxaladii isticmaalka ka horeysay marxalada waxa xukumayay muxuu ahaa saldanadii Cumaaniyiinta waxay ahayd saldanadii xeebaha bariga Afrika kala wareegtay mataqaanaa Boortaqiiska kala wareegtay xukunka Cumaaniyiintu wuxuu ku sinaa warshiiq ilaa Mombasa oo mataqaanaa fadhigoodu ahaa boqortooyada Cumaaniyiinta ilaa warshiiqa saldanadooda ku sineed marka warshiiq waxay kamid ahayd magaalooyinka ay xukumaan Cumaaniyiinta ay kamid ahayd Muqdisho ku jirtay marka Cumaaniyiintii waxa ku soo xigay isticmaalkii ayaa ku soo xigay oo Talyaaniga magaaladan waxay kaleetay gaar la tahay waa magaaladii ugu horeysay ee lagu dilay mataqaanaa mustacmirkii ama Talyaaniga magumeystihii Talyaaniga oo meeshii ugu horeysay qof looga dilo meeshan halkan yani halka xeebta ku muuqata halkaas lagu dilay ninka oo mataqaanaa wax yar halkan u soo bax xeebtaas lagu dilay ninka Talyaaniga ah oo mataqaanaa halkaan ka soo degay xeebtaas lagu dilay marka waa magaalo aad iyo aad taariikh leh waxa mataqaanaa markaas la dilay ninka waxa talinayay mataqaanaa oo Cumaaniyiintu mataqaanaa ay si mataqaanaa u haysay hoostiga saldanadii mataqaanaa Hiraabka ayaa iyaduna ka talinaysay laakiin saldanada Hiraabka xilliyada dambe waxa kor ka sii haystay saldanadii Cumaaniyiinta ka haystay sidoo kale meeshan waxay la taariikh wadaagtaa markii ninka gaalka halka lagu dilay dhacdadii ku xigtay waxay ahayd 16kii Talyaaniga lagu dilay meesha Lafoole loo yaqaan Lafoole waad ogtahay magacaas Lafoole wuxuu ku yimid Talyaanigii lagu dilay halka lagu dilay waxa ku xigtay haddana dhacdadii kaleetay waxa ku xigtay ninkii Talyaaniga ahaa ee taliyihii dhama ahaa oo markabka waday oo lagu dilay isaguna marko oo biimalku ay dileen marka xeebahan waa isku taariikh magaaladan waxay la taariikh tahay Muqdisho waxay la taariikh tahay Marka waxay la taariikh tahay Baraawo sababaha oo ay u kori weysay magaaladu waxa kamid ahayd waxa ka dambeeyay isticmaalka Talyaaniga aad ugu horyimay magaalada ilaa maadaama ay tahay meesha ugu horeysay Talyaaniga loogu horyimay isaguna wuxuu mataqaanaa uu diiday inay magaaladu kobcdo inay dhismato cunaqabatayn oo xagga horumarka ah ayuu ku soo rogay Talyaanigu
dhinaca markaba waa lagu dilay laakiin marka uu ku qasbanaa oo wabiga iyo dhulbeereedkii iyo dhaqaale ahaan ayuu uga maarmi waayey laakiin magaaladan si gaar ayuu cunaqabateyn u saaray ilaa hadda cunaqabateyntii way ka muuqataa Talyaanigu uu saaray waxaa magaaladan dhinac kale marka laga fiirsho waa magaalo diimeed oo mar walba maraakiis aqooneed oo cilmi ah oo diinta laga faafiyo oo looga soo xireysto dhammaan gobollada Soomaaliya oo dhan looga yimaado aqoon looga yimaado ayaa maraakiis cilmi ah ku tiil mashaayikhda ugu waaweyn ee magaaladan mataqaanaa camiri jirta waxaa kamid ah sheekha qabrigiisa halka ku yaala masaajidka mataqaanaa Sheekh Abikar Mixdaar la dhihi jiray asagu asal ahaan wuxuu ahaa reer Banaadir oo ahaa reer Muqdisho ahaa laakiin Muqdisho ka soo haajiray sababta uu soo haajirana waxay ahayd ciyaaro Muqdisho ka dhici jiray berigii hore taariikhiga oo la dhihi jiray Heyku وميناس وسند لا هاد أو ضدك يجوا قاقا ونرج يضمر أسبوع دن متقنا بناك الله هي هبية مالنا وضد فجر كل كعلماء السولي ويصور لقد ديري أيو سكجسوا هاجر الشيخ ومجالا يمتي ولا أو دينتي ولا صوفة كذا كدي بنهار كانوا متقنا دينتي ففنت هذا كبر لعبي وكمزايد كتاريخي كقبل جسوا كيالو وحيسق علماء دي وحكر هبته وحكر حشة وحاكمية شيخ عبد عمر وشيخ عبد عمر وعلي شيخ عبد عمر العلي اللي يرهده ومتقنا runtii kana dhashay environment-gan ku hareeraysan magaalada dadka degan ka dhashay Sheekh Abdi Umar marka Sheekh Abdi Umar aad u faafiyay diinta oo aqoon badan faafiyay sidoo kale dariiqada qaadiriyada gaar ahaan qaybteeda Zayliciyada ayuu aad u faafiyay oo mataqaana marka la yiraahdo koonfurta Zayliciyada marka la yiraahdo wuxuu ku xooganta dhanka waqooyi laakiin Zayliciyada koonfur qudbigoodu wuxuu ahaa Sheekh Abdi Umar مركز كديني جاهي وين وحوها ورشيخ هاي علمي يو منطقة أقوم في علم آلدنا وحلص الدونة جرى حال كان سيدو كان شيخ عبد عمر مركز هير شيخ عبد عمر وضدك حد مجالنا والله قدم بيو ومنطقة سلطنة الدين كجرت وهل كان وهير شيخ عبد عمر أصل كمجالنا إنه ورشيخ حل جدي هو وحال أورنجري أبونا مجا ورشيخ حل الضمبي وبحر مجا هو جريج يقينين وحيد أبونا سيد مقدشة لو يقين سرب محوها سيربيون سيدا جندشة لو يقين نايكون يومركا لو يقين نايكون مركا مجاولين حاجات معيه هروحها نايكون سيربيون أبونا ورشيخ وحيد أبونا تاريخ القديم كمركا ليله كدي ورشيخ اللي بحيي مجا علومات عصان اللي بحيي وهل كانت مدي مركا مجالنا ومجالات تاريخيات ومجالات ديميت ومجال نبضات وحي كله وجد دونتها مجالوين ككلاته مجالات دجال يربش يدباته يسكودع وكذا معهن ومجالات دتكون يسميهين ما أنت لو حنكون سويه هنا عبد السمت يجنا الكيسة يقولكم بارك الله فيك. يا دوم هسات صاحبي الله يبارك فيك. صاحبك قربحين آدي هذا قربحين بقسيي أو حنكون أول بتعاون يسا دنك الدينته دنك مجرنا يسا حدارده دنك مجرنا يسا مجالده دنك مجرنا يسا وحنكون يقوم يستها ما شاء الله آدي هذا بتصاحب يقوم هسات قربحين تعنا قسيسي. هذا كيسح وبلاد عصر أي حاجة ركن وطبك ورقتها برتها هذا يحنا هو إحنا كثر معيار ما شاء الله صار كيسان به وهو بيها كسر فيه تلياني وكميسو تلياني هي سوما تلياني وحواي تلياني برتغيز أنا حبي صوت سيدياش هراء أو تاريخ ذا سيدياش هراء تاريخ ذا إيش شيئين من ونافين من البنان كل عاي من أنتو كل عاي وهو بيه من كل عاي مراكبت الدجالك هو بيه موجود أنت اللي معايا المركب مركب كل فتين هو بيه مركي هذيك مركل هورنتو ما اسمعني مو ماشي أنا يصوبك صدقني كل فتين هو بيه مجال المشان مجال إيه هذاك مجال المشان اسمه اسمي بربري كيف بربرتنا أساق شهور بس واخر أنا شو واخر هذا ركسان
وهوبيه halka inta leh وهوبيه dhismayaashan oo dhan waa dhismayaashii Talyaaniga iyo gumaystii Portugiisku uu garaacay markii uu dagaalka kula jiray deegaanka Warshiikh ما شاء الله وكل عد رباني وي ايش انا اركز ودير هنا عنا وقت دخولي غدا في وايي مكيدي هتي عدي ايام نفطر لصوت طلابي دلكي markaydii hatee sundaacday ayaa nafta la soo dallaaday dalkaygu عانا الوعدة